laacibka ka soo hayaama dalka Australia una imaaday inuu Kenya gaaro 1 milyan sida ugu dabaaldego ayaa hadda la soo sheegay in wajiga dhaawac laga gaarsiiyay. ugu horeen waxaan rabaa inaan barnaamijkaas ka hadlo. fadlan ugu horeen waxaan ka codsanayaa inaad leeg saartid sina shirgareysid asxaabtaadana aad la qaybsatid barnaamijkan. haddaad leeg saartid waxay ka qayb qaadanaysaa inuu asxaabta la rabo iyo barti oo la rabo fiidiyogan uu tago. marka leeg lacag ma fadhiyo waana saari kartaa bal ku dadaal inaad saartid. yarkan dhadhaxaya Darisla Cabdi haddana ah YouTuber weyn oo ku jira YouTuberada labaad ee ugu weyn ee Soomaalida ayaa waxa la soo sheegayaa wajigiina dhaawac laga gaarsiiyay na la soo weeraray oo la dilay. qolada dishay rag iyo dumarba waxay yihiin Allahu yaclam, laakiin waxa la sheegay inuu dhaawac gaaray. social media meel walba ay akoon ku leedahay Soomaalida, ha ahaado YouTube-ka, ha ahaado Snapchat-ka, ha ahaado Instagram-ka, ha ahaado TikTok-ba aad ay u haystaa. xataa Facebook-ga aad ay u haystaa. asxaabta la oo ugu dhaw haday ahaato Samiixa Qaliil haday ahaatone xoohay Asad Faqdiid waxyaalo badan ay soo boosti gareynayaan. dadka Nairobi joogo aad badan ugu soo hadlayo. dad kale oo YouTube isticmaalayo views ku raadsanayo si kalsooni darra si aad badan ugu soo hadlayo. ugu horeen anigu ahaan foolay maxaan ka ogahay mise maxaan aqli ahaantayda anigu aan dhihi karaa dhaawacani. waxaan kula share garay doonaa sida aniga aan aaminsanahay ama aniga waxa aan dareemayo feelinka aniga aan dareemayo ayaan waxaan rabaa inaan kula share gareeyo. waxaana ku sii doonaa aqligaaga cadeemo qaadanayo. waa aqligaaga cadeemo qaadanayo sababtoo ah waxaan wax ka tusi doonaa meelo badan ay been ek sheegayaan, meelo badan ee Soomaali lagu marxabaabinayo. waxaan rabaa inaan kula wadaago horta ogow Darisla Cabdi inuu u sameeyo karo wax walba sidoo milyan u gaari lahay. sababtoo ah Asad Xaajiyo ayaa wuxuu ku soo socdaa si dardar leh si kiina 1 milyan gaaray. marka anigu isma dhihin Darisla Cabdi ayaa maray 882,000 laakiin way dhacday. laakiin ogow Darisla Cabdi wax walba uu sameeyo karaa si walba ugu imaato. waayo waxaan arkay Samiixa Qaliil oo soo qorays danta sheegaysa leh waxay soo qortay Darisla waa ku duceynaya inuu Ilaahay ku caafiyo. haddana waxay soo qortay Asad Faqdiid wuxuu soo garay saaxib nin raga wax walba uu soo maray saaxib Ilaahay ku dhibirayo. dhibaatooyinka badan ee aad ku badan ay u soo laalaabanay Soomaalideena inay been la sheego baraakina laga dhigo saas waxaan aad weyn 882,000 oo qofood ama 83,000 oo qofood inay been intaas la eg loo sheegane kulli wax caqabad oo asay ku kalifayo waxay taarta ma garanayo. laakiin waxaan cadeemo badan ayaan ku siinayaa sidii wax jirin. ogaa horta wajiga koowaad markay wax ku dhacaan wajiga dhinaca ugu badan oo wax ugu dhaceen waxa waaye daankan iyo madaxaas wax yar ka gaareen. inta ugu badan laf way ku jirtaa labadaas. laf haday jartan waxa laga yaabaa xataa sankiisa xataa mataabaka saan xataa sankiisa xoog u riixa saad u jeedid sankiisa xataa mataabakado. marka dhinacana iskuma eko waxa la dareemayaa inay makeup oo yahay filter oo yahay xataa dhinaca uma eko wajigiisa inuu makeup yahay la dareemayaa. dharkiisa oo wato dhar xataa wasaq soo gaarto uma eko calashaan oo dhiig ku dootay. sababta dhakhtarada xataa markii ay habeeyso faashada markii la saarayo xataa inuu dhiig xataa mala dareemayo xataa dhiig xataa ma soo saarmaayo oo faashada ma soo raacayo. marka beenta intaas leeg in la sameeyo wax kalifa ma ogi. marka u fiirso meela intii la soo fadhiistaa waxa leeyahay barakina ugu sameeynaa film movie aan diyaarinay. marka waa in raali galina sida wax u qaadateen ma aha. marka waana sugi doontiin insha Allah. waxaan iga codsanayaa inaan saan suula socono leega asartiin soo asxaabta badan u gaaro Instagram-ka iyo Snapchat-ka inaa iga soo follow garaysid. aad ma sata video xogta ku doono sidaas nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.